Dadyowga dunida ayaa ku kala duwan dhaqamada iyo cuntooyinka. Qaarkood ayaa cuna waxyaabo aan adiga kula fiicnayn oo la yaab kugu noqonaya. Dalalka ugu la yaabka badan xagga cuntada waa dalalka indhayarta ah sida Shiinaha, Jabbaan, labada Kooriya iyo Thailand. Waxaanu maanta muuqaalkan ku eegi doonaa cuntooyinka aadka looga jecel yahay Shiinaha ee ku soo dhawaada muuqaalka oo dhammaystiran. China ayaa ka duwan dalalka kale marka la eego cuntada. Waxaaba moodaa inay ka jirto qaacidada ah wixii aan ku cuninba waa la cunaa. Cuntooyinka aadka looga jecel yahay Shiinaha waxaa ka mid ah: 1. Hilibka masaska. Masku waa mid ka mid ah xamaaratada ugu halista badan dunida. Dadka Shiinayska ah ayaa aad u ugaarsada masaska. Ujeedada ay u ugaarsanayaanna waxa ay tahay inay cunaan hilibkiisa. Ugaarsatada marka ay soo qabtaan masaska, waxa ay keenaan suuqa. Mas kasta oo ka mid ah masaskan waxaa lagu ridaa shabaq u gaara, waxaana iibsada bulshada danaysa hilibkiisa. Masaska ayaa ku kala badan xagga qiimaha, qaarkood waa kuwa qaali ah, qaar kalena waa raqiis. Intaa kadib waxaa la qalaa maska iyadoo la jarjaro hilibkiisa deetana la kariyo, sidaasna lagu cuno. 2. Sanka doofaarka. Dadka gaalada ah ayaa badankoodu cunaan hilibka doofaarka, taasina waa mid ay ka siman yihiin. Balse China ayaa si gaara looga xiiseeyaa cunista sanka doofaarka iyagoo cuntada ku darsada. 3. Haraanka ama dabaqalooca. Haraanku waa noole sun badan. Waxaa caalamka ku nool ku dhawaad 2,000 oo nooc oo haraan ah. Annaga ahaan waan dilnaa haraanka marka aan aragno, waayo wax faa'iido ah nooma leh. Balse dadka Shiinayska ah ayaa naga duwan. Wuxuu haraanku ka mid yahay cuntooyinka aasaasiga ah, iyagoo aad u ugaarsada. Intaa kadibna waxay ku kariyaan saliid isagoo nool wayna cunaan. 4. Maskaxda daanyeerka. Meelo badan oo caalamka ku yaal ayaa aad looga cunaa hilibka daanyeerka, sida Shiinaha, wadamada dhaca koonfurta qaaradda Aasiya, iyo qaar ka mid ah dalalka dhaca galbeedka Afrika sida Cameroon. Hilibka daanyeerka ayaa ah mid aad u sun badan, wuxuuna sababaa cudurro badan sida fayraska dilaaga ah ee Ebola, kaasoo galaaftay nolosha 100,000 oo qof oo Afrikaan ah. Si gaara dadka Shiinayska ah ayaa aad u cuna maskaxda daanyeerka. Waxa ayna aaminsan yihiin in cuntadani ay siinayso awood galme oo heer sare ah. Qaabka lagu helo maskaxda daanyeerka waa mid cajiib ah oo ay ciqaabi ku jirto. Waxaa la soo qaadaa daanyeerka oo nool, waxaana hoos laga soo geliyaa miis yar oo dhexda ku leh dulaal wareegsan oo la eg madaxa daanyeerka. Intaa kadib markii uu madaxu soo muuqdo, waxa ay la dhacaan buris ama dube sida aad u taqaano. Daanyeerkii oo nool oo weliba qaylinaya ayaa madaxa laga garaacaa, kadibna waxay kala soo baxaan maskaxda. Ciriinka ayayna ku cunaan. Sidoo kale waxaa ka mid ah cuntooyinka laga cuno Shiinaha: dooliga, baranbarada, iyo indhaha malayga. Ugu dambeyntii, haddaad dhammaysatay muuqaalka, share dheh oo gaarsii asxaabtaada.